xubnaha kala duwan ee loo sameeyay casho sharafta ayaa isugu jiray qoraayo farshaxamiistayaal iyo hal abuuro ka socday dalal badan oo kamid ah caalamka kuwaas oo ay kamid yihiin Ruushka, Suuriya, Iceland, Kenya, Congo, Ethiopia, Ghana, Sudan iyo wadamo kale. waxaana casho sharaftani ku maamusay mas'uuliyiinta xarunta hidaha iyo dhaqanka Hargeysa iyadoo oo loogu sameeyay isla goobtaasi. kooxda fanaaniinta hidaha iyo dhaqanka ee xaruntan iyo qaar kamid ah gobolada Somaliland ayaa soo bandhigay suugaan iyo heeso ay ku cabirayaan dhaqanka dadkani uu leeyahay iyo kuwo ay ku dhiirigelinayaan qoraalka afka Soomaaliga. intii xafladu socotay ayaa lagu soo bandhigay goobta suugaan ay tiriyaan qaar kamid ah abwaanada Somaliland iyadoo marti sharaftii ka socotay dalalka kala duwan loogu turjumayo luqadda Ingiriisiga. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani ayaa soo dhaweeyay xubno sharafeedkani loo sameeyay casho sharafta. As the Minister of Information, National Gardens and Culture, it's a special privilege for me to welcome you. anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta kan xukuumadda Somaliland iyo kan hidaha iyo dhaqanka waxaan soo dhaweynayaa qoraayada hal abuurada iyo farshaxamiistayaasha ka kala socda dalalka kala duwan. People from Somaliland have long been refugees and migrant communities in faraway countries in the Middle East as back as the 1940s. wuxuu wasiirku tilmaamay in dadka Somaliland tan iyo 1940 ahaayeen dad ku kala filaqsanaa qaaradaha kala duwan ee caalamka sida Bariga Dhexe, Yurub, Ameerika iyo qaybo kaleba kuwaas oo fahmaya ayuu yidhi lana qabsaday dhaqamada kala duwan ee dalalkaasi ay ku nool yihiin. waxaana uu wasiirku sheegay in dalkan yahay mid nabdoon kana caagan kooxaha hubka ku midaamaysan sidaas awgeed ayuu yidhi waxaanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo ka faa'iideysanaysa dhinaca ganacsiga iyo horumarka. To welcome so many communities here in stable, peaceful and business. gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland ahna gudoomiyaha xisbi siyaasadeedka wadani Cabdiraxmaan Ciro ayaa isaguna soo dhaweeyay xubno sharafeedkani isugu jira qoraayada farshaxamiistayaasha iyo hal abuurada ee kamid ah mas'uuliyiinta lagu soo cusumay bandhiga qarwada buugaagta Somaliland ee lagu qabtay Hotel Gule. I would like to thank everyone who participated in this occasion and in the Hargeisa International Book Fair.